بسم الله اللهم صل على محمد. aad baa inii salaam khiyaar sharafta leh. waxaan rabaa maanta nasiib darrada haysata dhalinyarta Soomaalida in aan ka hadlo taasoo ku saabsan maaragtay ugu kalifayna abaarta Soomaaliya ka jirta sanad walba soo noqota. runtii aniga ahaantayda aad baa ugu niyadjabsanahay Soomaaliya. waa wadan runtii dib dhacay dhalinyartii ku kalifay maaragtay dhibaatooyin aan la xisaabin karin oo aysan la qabin caalamka taariikhda hore iyo tii dambe iyo tii dhexe waxa soo maray Soomaaliya dhalinyartooda waxa ay maaragtay hadda ay ku sugan yihiin xaal la soo maray ama maaragtay taariikhda lagu maqlay ma aha maadaama ay Soomaali ka dhasheen oo maaragtay ay dad Soomaali ay yihiin intaas kaliya waxa ku filanba in ay dad maaragtay dib dhacay hadda aniga toosan keligii maaragtay tusaale isku soo qaato yani kuma qanacsan Soomaalinimada maadaama aan ahayna Soomaali aan ku qasbanahay meel aan uga bixi karin haddana maaragtay ku qanacsan inuu Soomaali ahaado ama ku faani kara waxaan ay Soomaali miyi waxaana taas ii keenay waxaan ka dhashay dad aad u xun dad maaragtay yani igu keenay inuu fikirkiisa isku bedelo yani abaarahan dhacayo dadka baaba'ayo dhibaatooyinka ku sugan waxa ka sii daran waxa ay sababayaan yani dareenka dhalinyartii iyo isbedelada ku dhacayo maaragtay xagga fikirka marna waxaan taaganahay inaan Soomaali aan sheegan kari weyno oo dhaano wax walba waxa ugu sii daran oo maaragtay TV-yada iyo la mustacaan joornaalada wadanka wax walba qoraya dad baaba'ay oo dhibaataysan oo aan daawan kareynin markaad mid soo shaqeysaan mid meel isku barateen uu ku weydiiyo wadanka ka timid aad tiraahdo Soomaaliya dib u kaaga digi yani waa nin liito ku arkaa nin wuxuu ku arkaa maaragtay wadankoodii wadan xun ka yimid jaawgaysa marka waxaa la kulmaysaa yasmo iyo waxaa la kulmaysaa maaragtay in si gooniya lagu fiirsho haddaad tiraahdo waxaan ahay Soomaali taas ma rabno anaga dadka inay yeesaan ma rabno dadka in si xun oo la arkay ma rabno taas waxa sababi kartaa inaan Soomaali sheegin kari weyno qof walba waa soo Ilaahay wuxuu ku abuuray qadiyad ah inuu asaga dadka ugu shareeyo inuu dadka asaga maaragtay qof lamida uu san jirin xaq walba oo nolosha ka mid ah in maaragtay in la liido uu qofka ogoleen أول دتكن Soomaali ka faana oo wadanka la sheegta waliya bijir laakiin hadda mudooyin ka dambe aad baan runtii uga garaabay dhibaatadaasi haysata oo mid ani ka hor ogaadeen ani wadan baan haddan dareemay salahan dhibaatooyinkan iyo abaarahan iyo dagaaladan iyo maaragtay dadka Soomaalida mudooyinka dambe ay ku gudan jireen waxay keentay maaragtay in wadanka Soomaaliya iska daashisheeyaha dadka Soomaalida ay nacaan runtii maalin waxaan aaday dhakhtar waxaan waraysi kadib wuxuu i weydiiyay wadankee ka timid markaas waxaan isirin haddaad tiraahdo Soomaaliya yani xoogaa si gooni inuu ku fiishaa laga yaabay أنا مسكحة إذا كشاكي سلام ممكن Soomaaliya wadankee ka timid u yiri ama مسكحة waxa ka sheekaysa waxaan isirin haddaad tiraahdo waxaan ahay Soomaali ama dad maaragtay liita maaragtay kala ugu arkaa ama been u sheegtaa oo wadamada kale Afrika mid kamida aad maaragtay ku tiraahdo wadankaas aan ka imid bal inta soo caadil ugu arkaa ana isla markii waxa uu soo dhacday doofaarkan gaalka beed maxaa ugu sheegaysaa sidiisa faa'iido ka soo galaysa been u sheegtaa haduu ku yeesin bada Soomaaliya hadda tahay waxa Ilaahay ka dhaliyay maaragtay u sheeg waxa ay Soomaali والله بيقول شيء وقدر بيجوا يقدقين وحيل أوه ماشي اسمه القطروة وخاصة وحائل قطروة
وقاسو وحي بلاوي شيكوينka ahaa burcad badeedka iyo dagaaladii sokeeye iyo wadanka qaybku yahay wuxuu og yahay oo dabca ibaartii inuu iga sheekeeyo waxa inuu dhigeyso wadankaas waxa soo ka warhaya madax xanuunkiisa aad baan u nacbahay asiga dadkiisa maartay mowduuca looga saar mowduuca meesha uu nimid qorshahay danteen maartay aan ka wada hadalno marka yani waa saameyn marba qofka maartay waagi hore waxaan ahaan jiray nin Soomaalinimada ku weyn tahay nin maartay qadiyada Soomaaliya maartay daacadka dadkiisa dalkiisa aad u jecel maartay horumarkiisa ka taliya dadka maartay wax u sheeg laakiin marqun maartay waa ka daba imanaysa oo waxa leedahay niyo baashan taal ugu sijiri karabani waxa waa dhibaatada kurbadani waxan dad hadaan ma dad badan waxay ku leeyahay Soomaaliya dhexdooda waxay ku leeyahay Soomaaliya qaarada Afrika ka gooyn lahayd hadan baarka hubka nuclear ka haysan la ayadana oo qaraacay nacab loo qabo dadka dhalinyartiisa yani inay ayakii baa dadkii wadacay waxa sameynayeen hada isweydiis waa kuma waayo dadka laynaayo dadkan gaajada iyo abaaraha waxaan sababayo dadka maaragtay la soo barikiciyay ila hadda qof la eedeyn karo oo la leeyahay hebel baa noo sababay mujur haduu jiri la xafiis dadka laga maamulo waxaan sababa kadib wixii bedeli kara aqli ahaan xafiiskaas ay ku banaan baxno oo dhahana waxaan bedel waxaan yeel ugu dambeyn waxba ka sal gaari lahayn ama hadida ma haye laakiin meel loo baxo ama meel arinta ay ka timid oo qof loo eedeeyo male dadba ay ku leeyahay qabiilada Soomaaliya qabiil baa heerkan gaarsiiyay marka u fiirisid daacada u fiirisidna qabiil heerkan ma gaarsiiyo yani قبيل أو واحد كي يكون رقمان واحد مع ذلك كي يكون شين يقيمه أو كلام بحان يعني ما قربها أتماضو سيد يقول سلام كأوفير سيد قبيلة إسلام بس يقول سيد ضد إسلام بقول قوة نال وساحب يعني قبيل مصاب يعني باش ما حسب إلا هذا أنا ما فاهمين اللي كل جبارته واسمي Soomaaliya ما حيدت كان عالم ككون هول لبض بقول كبضا ودن محا إلهي كدوي maxaa dadkan sababta ka duwa inaan ogaada isku dayay oo isu tigilweys dina awal baan ka fiirshay waxaan keenay yani meel u kaxeyn garoon saarahan dagaaladii sokeeye Soomaaliya saaqoy hawiyaha dhexda ka dhacay abalgeliya iyo abgaal marka u fiirsato waxaad arkaysaa waxyaabo badan ka yaabiya maanta waxa dagaalayo abalgeliya abgaal magaalada Muqdisho بري عالم هذا عايد وحكول ما يا نيروبي حبت كيس قلنا يا هذا صاحبه ولد ما رتي شيء وحراك ما دحيسو حمر ايمانا يان اسلا markiina la maartay in walba ciidan soo diray dadka la isku layn waxa leedahay waxaan inuu qadiyad nooc ah loo inaad isku xariisan yihiin inay salaamama waa ina maartay cadaw tinuu fuka wada dhaxaysa aysan ahayna in maartay la wada heshiiya oo qaab lagu socdaa male la jiifiya banaan oo joojiya banaan oo Soomaalida aniga waxaan rabaa aad maartay tiiraanyo iyo murugo maartay ugu haysaa waxay tahay dhalinyarta Soomaalida oo aniga aan kamid ahay runtii waa dad dhibanayaal ah maartay qaab ay dhibaatada uga baxaana waa lacag dhalinyarada soo baxday siyaasiyadii wax inay bedelaan isku day oo isu tigeli weysi labada kan kuwa soo baxay wax inay bedelaan oo isu tigeli weysi magaalada aniga aan ku nool dhalinyarada soo baxday oo roo inay sameeyaan isku day oo isu tigeli weysi yani hadii waxa isku daydo ina wax sameeysan wax isu tigeli maayaan dadka dhexdoodaba wixii maartay ma ogolaanayaan in horumarkii wax la socodsiiyo ayakii lugaha iska kala haystaan in maartay wax la dhaqaajiyo ma ogola nin walba meel buu isku xiray hadii shirar iyo horumar iyo waxba la sameeyay hadii in bacaawad soo qaato wuxuu ugu soo talagalayaa inuu hawshaas uu burburiyo oo maartay meel maartay oo saaro oo ay wax ka socon yani dadaba qorshoodu uu noqon xaasidnimo xiddi maartay isnacay dhexdooda maartay aad baa wala yaabay runtii arintaas haad ila fiirsha maartay hadaan ku saxsanahay halay garaabo dadka Soomaalida xun inay yihiin dad liita inay yihiin dad maartay in dad la mid ah caalamku yani qof dadkan bil aadam oo muuqaal igi ani waxaan dhihi karaa Soomaalida waa dad bil aadamka u muuqaal eg laakiin aan bil aadam ahayn حاجة جركة إيو حاجة نعكة لكن حاجة مسكحة رنتي ما نيكرو تذكر بالعادل سواء بالعادل وهذا دليل وهذا مركو وحكونا عان اسمه مركي انتو وحكي فكر وحبس بدل سمايا
dadka Soomaalida ma sameeyaan isbedel waa shalay meeshu taagnaa oo maanta taagan yahay maanta taagan yahay Brito wax kale ka filmaysid meeshu daraa taagnaa inuu bari la yimaado oo maartay uu taagnaada maahan dhalinyarada Soomaalida maartay dhibanayaasha waddanka Soomaaliya ka dhashay runtii waddan aad u xun ah waxaan leeyahay ما دي كره عندنا إذا ما مقنا إلا إذا ما قدنا يعني عدوا أو مقنتوا إلى أو مقن وارتي حواها كاس هذا الكاسي هذا ما رتي لوجيك حق ما مسك هذا قبسن كره إلى ما إلهي بقى مقن ما رتي تذكر أو كان صديق أو سوي سوي وحن سوي دون قابل في هذا يعني بروح واسبدلي دونا دو إلى هذا لكن غيرت وحن لا يا هاي وليجين هقوصنينا وليجين ما ركتي أنا كبا قوصني أنا كبا ما ركتي باشو بيجي نراعي روان عضو ما رد قالتين تاجن إن مرة وحنا قرأت الرا نذكر إلى هذا سام قصة صعدة صاروا حوا إلى نوال بوضع كجوتي ولا شيء ديس الشيء نوال بما ركتي أنا باسبور كعايزتي عروت هذا وش كي باشو اللي بدلوا يعني سان لو مجري كرو ثاني مارتي سي لو جيري كلا شري مدحوينها markii uu maartay farmaajo la dooranayay runtii aad baan maar ugu faraxsaneen oo leeyahay yani hadda waxa u malaysaa dadkii inay maar isla markii dadka dad leh mowqif adag xataa ma shalay dadka aad u jeclaayay farmaajo maantana qof walba ka soo horbaxa wuxuu muujinayaa niyad iyo maartay in wuxuu sidii la rabay ay u socon inkastoo muddo yar oo kooban hadda bil iyo dhowr maalmood oo madaxweyne yahay haddana dadkii isla markii waa niyad jabeen dadkii waxa maartay waa quusteen dadkii maartay ma faraxsana madaxweynimo ma faraxsana yani sababta keenayso adiga isweydiin anigu ma aqaano yani isbedelka maartay oo xaga nacaybka waa u fududnahay waxaan caayno waxaan maartay inaano waxaan maartay inaan ilaalo oo waxba laga keenayo qofka aan jibino aan dad u sameeysan baan nahay laakiin in maartay waxaan la taageero oo loo dulqaato oo baaragabada laga riixo dhalinyarada maartay la dhiirigeliyo iyo maartay ragga waa nagu cusub tahay laakiin inta ay sheego dhan ayadoo jirto ba anigu shakhsiyan waxaan rabaa maartay in aan ka qayb qaato sidii dhalinyarta Soomaalida ah aanu iskugu keeni lahayn يعني أنا ما ركتي ودي لهاي نمايا هو وطن كاني أنا كإسكالة عندنا مقال أنت نوتي ما ده هيسا إن كالي رجال أسكو إمالا ودن كيني كإسكالة أورمر الصدا نلا تلين دون تاي مجرد قفنا يال سجين أنا جي أديك حتى نسكون معنا وحبضان بانكبان كرنا إن أنت الصومالي ده وناقة جعل وبضان تاي لكن تدخل لاي معهن dad inta meeshii maada mowqifkooda sheegtay ma ahan hal inoo xunba meel intuu qeeliyo baa lagu daba feelaa hal isku nimaadno xagga fikirka xagga maaragtay aqliga horumarka waddanka Soomaaliya yeysan ka dhicin haduu Ilaahay ilaahdo abaar dambe oo nacabaysa oo maaragtay nacayb anaka inagu abuurta oo Soomaalidii maaragtay magac xun iyo maaragtay isu jiida lagu filay inta hadda gaartay يعني إن ما حتى شيء ضد محو أركان شيء إلى هذا أباردم بيس إما إن لا أتكاتو لا عصلاته أو إحنا سبعين شيء كمية يعني ضد محو حاجة هرمركة حاجة ما الدنيا دفع أنا أدور ما هي يعني قاد يا مركا إن وفود درون هو صار وصوت هذا صدق يتونن بحرمة الصومالية كان عمرنا زي ما يقول مليون دولار جرت أو في عن وحبرتي أو وطن هذه ما أنت أوتيماد أما أي سكوكر بحرمان إن أي هرمر جالسين كلام عمرنا زي بدنا لقبان كلام يعني لكن ذات كني مؤجا يعني ما إنترست بدنا حساب بدنا وضك يكون هايو إن ودنيا دي بقى مكان يعني أبو رستي هذا شيء فضل معها سأوجد إن دليرته أنا رانو ما يهو وقتي والي جاري كعان سمين لهاين ما أركتي أنا استأجير لهاين أنا سيدي وطن كان الوهر مرين لها على جفريستو على جتشتو ما أركتي دليرتو سان كل جرنا أو سان إسكسو تاعنا أنا وطن كان أنا وطن قربان إسكالنا ولا أنا كدي أنا كبابا أنا كل أنا فكر في عن ما أركتي وما أركو
haddii la rabo in waddankan Soomaaliya dhalinyarteeda fiican ay badbaadaan waxaa muhiima inaad ka hadasho waxaa muhiima inaad xaq yeelato waxaa muhiima inaad maaragtay fikirkaada dhiibato waxaa muhiima in aad wax walba waddanka laga sameeyo aad ka qayb qaadatid aad tiraado waxaas wixii ku cuntami waayay aad tiraado maya wixii aad markaas wanaag u aragtana aad tiraado waa taageersanahay aad ba u mahadsantahay daawashadiina. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.